kula wacan wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamij wareedkeena qodobada waxaan diiradda ku saari doonaa xaaladii ugu dambeysay Mugdisho iyo xukuumadda Soomaaliya oo qeeratay fashilka ku yimid shirka golaha wadatashiga qaran qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya jawiga caasimadda Mugdisho ee Soomaaliya oo kacsan xilli ciidamada badbaado qaran dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka wadaan qaybo badan oo ka mid ah magaalada Mugdisho oo idin soo gudbin doona saaxiibayaal iyo xogay ugu dambeeyay sidoo kale waxaad ku daawan doontaan xukuumadda Soomaaliya oo qeeratay fashil ku yimid shirka golaha wadatashiga qaran xilli Cabdilcasiis Xasan Maxamed Laftigaran oo isaga soo carray shirkii golaha wadatashiga qaran oo idin soo gudbin doona saaxiibayaal sidoo kale waxaad ku daawan doontaan barnaamij wareedkeena inta hawada ku jira ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ciidamada badbaado qaran ka dalbaday inay xaaladda dejiyaan kana warsugaan xilli la yahay Ciidan halka uu dhigay madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waa idin soo gudbin doonaa saaxiibayaal sidoo kale waxaad ku daawan doontaan senator Muuse Suude oo balanqaad u sameeyay ciidamada badbaado qaran ee Mugdisho soo gaaray sidoo kale ciidamo kale oo badbaado qaran ayuu dalbada saaxiibayaal waa idin soo gudbin doonaa barnaamij wareedkeena ayaad ku daawan doontaan qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan fadlan haddii ay tahay markii kugu horeysay ku soo gaaray waxaan kaa codsanaynaa subscribe channelkeena YouTube-ka ee tubta wararka sidoo kale gambeelka furo si wararka loo soo dhigay ku soo gaaraan inta badan Soomaalida wararka waaweyn ee caalamka ayaan soo gudbinaa saaxiibayaal oo nala saaxiib joogta anaga dhigo mahadsanida aan ku bilownay gebi ahaan waxaa qasan jawiga caasimadda Mugdisho ee Soomaaliya iyadoo aad dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda laga dareemayo inta badan xarumaha ugu muhiimsan ee Mugdisho ku yaala ee dawladdu waxaana si aad ah loogu baaqdin qabaa dhaqdhaqaaqyada ciidamada badbaado qaran ee sameynayaan ee ku aadan iyaga oo bartamaha iyo qaybo kale oo badan oo Mugdisho ka mid ah goostay waxayna guulaan quraan ay ku yihiinba ciidamo daacad u ah madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo sidoo kale ciidamada badbaado qaran ayaa gurmudyo kala gudbin ka soo kala gaarayaan gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose sidoo kale gargaar ay isugu jiraba deeq raashin ah iyo xoolo nool iyo saanad military ayay gaarsiinayaan siyaasiyiin abqaryaal ah iyo sidoo kale xildhibaano baarlamaankii 10aad ka ah waxaana la filayaa in Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo kiisa geegaanba Mugdisho ay ka saaraan iyo dhulka Somali ee leedahay si kasta ahaatee ciidamada badbaado qaran ayaa iyaguna howlgalladooda si laba jibaarayo waxayna wacd ku sii mareen ilaa inta Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ay kaga ciribtirayaan filla Soomaaliya ana ogolaanayo doorasho hufan oo daacad ah inay ka dhacdo Soomaaliya aysan dib u laaban doonin waxaa sidoo kale war ka soo baxay xukuumadda federaalka Soomaaliya ee ku qeeratay in fashil uu ku yimid shirkii golaha wadatashiga qaran ee ku aadanaa in lagu dhameystiro hanaanka guud ee doorashooyinka dalka iyadoo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo warbaahinta la hadlay ayaana sheegay in Cabdilcasiis Xasan Maxamed Laftigaran oo ahaa qof uu ka dhaxlayo madaxweynihii hore ee dalka iskuna dayay afgambi inuu kula wareego xukunka guud gaar ahaan xafiiskayga iyo howlka shirarka ee golaha wasiirada wuxuuna sheegay Laftigaran in uu aaminsan yahay Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo madaxweynihii hore ee dalka sidoo kale si qubad ah amba dhiig ku daatay nuugay koonfur galbeed Soomaaliya inuu maamulo iyadoo si baadil ah ay u xiran tahay doorashada uu ku soo baxay wadaadka lagu magacaabo Mukhtaar Roobo Cali aw Mansuur si kasta ahaatee injineer Maxamed Xuseen Roble oo dhinacyo badan ka hadlay ayaa sidoo kale ka dalbaday badbaado qaran inay jawiga dejiyaan kana warsugaan Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya isagoo xaaladda dhinac u qadin doona doorashooyinka dalkuna mas'uuliyadda isagoo qaatay nabadda Soomaaliya iyagoo anfacayso sidoo kale inaysan dagaal ka dhicin Mugdisho oo danaynayo injineer Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya wali waxaad daawanaysan barnaamij wareedkeena daawadayaal fadlan haddii ay tahay markii kugu horeysay ku soo gaaray waxaan kaa codsanaynaa subscribe barteena sidoo kale gambeelka furo si wararka loo soo dhigay ku soo gaaraan haddii aad ka mid tahay saaxiibadeena khaaska si waxaan kaa codsanaynaa muuqaalkan share gare like saar si asxaab wanaagsan adoo kala hadno qaybta hoosaadka ugu leed oo inoo muhiim daawade mahadsanid markaan waxaa Ciidan la yahay halka uu dhigay madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo kadib fashilkii ku yimid shirka golaha wadatashiga qaran iyo ciidamada badbaado qaran oo qaybo badan oo Mugdisho ka mid ah dibiyay ka qotay iyagoo wacd ku marin Farmaajo ka soo saaray doon balse 24 saac ayaa la yahay Ciidan halka uu dhigay madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo taasi oo ku aadan hanaanka guud ee doorashooyinka dalka
iyo lifudgoynta doorashada dalka iyo mas-uuliyadda uu qaatay ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble. sidoo kale tan ayaa ku sii muujinaysa culeysada saaran badbaadada qaran ku aadan soo qabashada villa Soomaaliya madaxweynaha ku gambanaya ee Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyagoo sheegay kiriitaliska ku gambanaya villa Soomaaliya dhigta ka soo qaban doona ama xabsiga u taxaabi doonaan Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. si kasta ahaatee xaaladda guud ee Mugdisho ayaa qasan waxaa la leeyahay ciribyo janna halka uu dhigay Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya. si kasta ahaatee badbaadada qaran ciidamadaadu bacad ayay ku sii marayaan. senator Muuse Suude ayaa gurmada isugu jira raashin xoolo nool iyo saanad military isagoo garba ka helayo xildhibaano ay ka mid yihiin Mahad Salaad Axmed Macalin Fiqi wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur Ayraahdi isagoo ku marayba in badbaado qaran iyo hoyla garab taagan yihiin taa ku sii muujinayso walaaskii cadaadis ka saaran sidii villa Soomaaliya kaga saari lahaayeen kaliya taliska ragaadiga ku noqday villa Soomaaliya ee Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. dhinaca kale banaanbaxyo waaweyn oo ka dhan ah madaxweynihii hore ee dalka iyo sidoo kale hogaamiyaasha maamulada galmudug iyo koonfur galbeed Cabdilcasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor ayaa galgalay caasimadda Muqdisho. shacabka Soomaaliyeed ee ku nool caasimadda Muqdisho ayaa soo dhaweeyay natiijadii shirka golaha wadatashiga qaran ee soo saaran Ali Guudlaabe Sayid Abdullaahi Deni Axmed Madoori iyo ra'iisul wasaare Maxamed Muuse iyadoo taasina in codad kale shirka ay ka baxeen duqa Muqdisho Umar Finish Laftagareen iyo Qorqor kuwa oo garab u fidiyay madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. banaanbaxyadan ayaana isugu soo baxay jidadka waaweyn ee Muqdisho iyagoo dalbanayay in la taageero go'aankii ka soo baxay shirka golaha wadatashiga qaran mas'uuliyadda amniga dalka lagu wareejiyay Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya sidoo kale uu noqdo Farmaajo musharax oo qura. boorarkii wateen banaanbaxayaashu ayaa ku shardhaneed dooni meene kaliitalis dooni meene hagaadiga kaliitaliska Muqdisho burburi rafaad way soo aragtay markaan ma filayso iyo hadallo kale oo Farmaajo dooni meene iyo waxyaabo kale ay ku dhawaaqayeen banaanbaxayaashu isugu soo baxay Muqdisho balse Degdeg buu u siin doonaa kaliitaliska villa Soomaaliya gabaadka ka dhiganayo badbaado qaran wacadku ku martay korkiisuna ay taagan yihiin goordhowna qoorta ka soo qaban doonaan. xaaladda Muqdisho way kacsan tahay jabigu waa ka duwan yahay maalmihii hore banaanbaxyo ayaa ragaadinayo Farmaajo si good oo ciribyo jaaniga ayaa la laayahay Roble wuxuu ku baaqay in badbaado qaran ay dejiyaan warkuna ay ka sugaan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. halkani waa tubta wararka fadlan hadii ay tahay markii ugu horeysay ku soo gaaray waxaan ka codsanaynaa subscribe barteena amba channelkeena ka sidoo kale beelka furo si wararka loo soo dhigay ku soo garan waxaan ka sheekeynaa wararka Soomaalida ugu waaweyn iyo caalamka haddii aad xiisid saaxiib naga dhigo annagana saaxiib ayaan ka dhigan doonaa muuqaalkan share gare si saaxiib wanaagsan adigoo kale aan helno qaybta hoos aragtada ugu reebayno muhiim muuqaalka like saar si asxaab wanaagsan adigoo kale oo u gaaro waad ku maasantaa daawashada muuqaalkani waxay noo madala muuqaalkan kiis xiga haddii way baweyne nigaarsiyo waxaan rajeynayaa caafimaad saaxiibayaal.